السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada daawadayaal waa mar kale iyo walaalkii Maxamed Cabdiraxmaan. waa qiso la yaab badan, waa qiso marka aad maqasho aad yaabayso, waa qiso mudan in lagu cibro qaato. waa qisadii duulkii la oran jiray asxaabul uqduud iyo wixii asiibay. daawade waxaa laga yaabaa inaadan qisadan hore u maqal. asxaabul uqduud ma waxay rumeeyeen Ilaahay iyo maalinta qiyaame? sidee ayaa loo galay? kuma ayuu ahaa boqorkii daalimka ahaa? muxuu samayn jiray? ugu dambeyn sidee ayay u galeen muslimiintii? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxayna ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. balse daawade intaadan muuqaalka u gudangelin, fadlan waxaynu kaa codsanaynaa in aad fikirkaaga ka dhiibato muuqaalada aynu ku soo gudbinno channelkani. haddii aad ka heshay fiidiyowga, fadlan like saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. qisadani waxay ka dhacday dalka Yaman, gaar ahaan magaalada Najraan. waxaa laga wariyaa saxaabigii jaliilka ahaa Suhayb ar-Ruumi, Ilaahay ka raali noqday, inuu yidhi nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ayaan waxaan ka maqlay isagoo oranaya xadiis uu micnihiisu yahay: waxaa jiri jiray hadda ka hor boqorkaasi waxaa la oran jiray Dunnawaas al-Ximiyari. wuxuu lahaa nin saaxira. boqorkaasi wuxuu saaxirkiisa weydiin jiray waxyaabaha soo socda iyo dhibaatooyinka ku soo wajahan boqortooyadiisa. markuu weynaaday saaxirkii wuxuu ka cabsaday inuu dhinto, kadibna sixirkii halkaa ku baaba'o. wuxuu ku yidhi boqorkii, anigu waan weynaaday, waxaana ka baqayaa inaan dhinto, ee waxaad ii keentaa wiil yar oo fahmad badan si aan u baro cilmiga sixirka. waxaa loo keenay wiil yar oo fahmad badan, wuxuuna maalin kasta bari jiray sixirka. maalin maalmaha ka mida, wiilkii isagoo ka soo baxay reerkiisii una sii socda saaxirkii, wuxuu dhexda kala kulmay nin raahib ah oo cibaadaysanaya, oo ku xiran Ilaahay, rumaysanna maalinta qiyaame. wuxuu dhegaystay wiilkii waxa uu sheegaya raahibkani, balse wuxuu ka soo daahi jiray saaxirka maalin kasta, wuuna garaaci jiray. markuu reerkiisa aadana waxay ku oran jireen, xaggee ayaad ku soo daahday? maalintii dambe ayaa wiilkii wuxuu ku yidhi raahibkii wadaadka ahaa, intaan kula joogo maalin kasta oo aan kaa qaato diinta Ilaahay, wax badanna aad i fahansiiso, waxaan ka daahaa saaxirkii, wuuna i garaacaa maalin kasta. reerkaygina waxay i weydiiyaan meeshaan ku soo daahay, ee maxaa sameeyaa? wuxuu ku yidhi wadaadkii raahibka ahaa, hadduu ku yidhaahdo saaxirka, halkee ayaad ku soo daahday? waxaad tidhaahdaa, waxaan ku soo daahay reerkii. sidoo kale haddii reerku ay ku yidhaahdaan, halkee ayaad ku soo daahday? waxaad tidhaahdaa, waxaan ku soo daahay saaxirkii. muddo ayuu wiilkii wuxuu u dhexeeyey saaxirkii iyo reerkiisii, wuxuuna dhexda kula kulmi jiray wadaadkii raahibka ahaa. waxaa magaaladii ku soo baxay daabad aad u weyn, oo dadkii oo dhan way ka baqeen oo way ka wada carareen. wuxuu yidhi wiilkii yaraa, maanta ayaan kala ogaanayaa in hadalka saaxirka iyo hadalka wadaadka midka saxan, oo waxaan ku tijaabinayaa dhagax aad u yar. marna waxaan xusayaa sixirkii iyo wixii uu ibaray saaxirka, marna waxaan xusayaa magaca Ilaahay iyo wixii khayrka ahaa uu ibaray wadaadka. sidii ayuu sameeyey. wuxuu qaatay dhagax aad u yar, kadibna wuxuu ku akhriyey sixirkii la baray. balse markuu ku tuuray dhagaxii, daabaddii waxba way ka noqon weysay oo sideedii ayay ahayd. balse markii dambe ayuu wuxuu qaatay dhagax aad u yar, wuxuuna ku tuuray daabaddii. ilaahayow, haddii arrinka wadaadka uu khayr badan yahay, dhagaxan yar waxaad ku dishaa daabaddan. markii uu ku tuuray dhagaxiina, horay ayay ka dhimatay daabaddii. waxaana wiilkii yaraa u muuqatay in waxa uu sheegayo raahibka ay yihiin wax xaq ah, sixirkuna uusan faa'iido lahayn. wuxuu wiilkii u yimid raahibkii oo cibaadaysanaya, wuxuuna u sheegay arrintii daabaddii
iyo sidii uu u dilay. Wuxuu yidhi, wiilkaygiyo, waxaad noqotay qof iga fadli badan, warkaagana wuxuu gaaray magaalada oo dhan, ee haddii lagu qabsado ha ii sheegin meesha aan joogo. Wuxuu wiilkani caafin jiray dadka masaakiinta ah, wuxuuna daaweyn jiray dadka barasta qaba iyo dadka indho-la'aanta ku dhashtay. Waxaa maqlay wiilkii yaraa wasiir ka mid ahaa wasiiradii boqorkii daalimka ahaa, oo wuxuu ahaa wasiir indhool ah. Wuxuu u yimid wiilkii yaraa, wuxuuna u keenay hadiyado aad u badan, wuxuuna ku yidhi, ii soo celi indhahayga. Wuxuu yidhi wiilkii, anigu indhaha ma soo celiyo, oo Ilaahay idinkii ayaa wax kasta u sameeyaa, balse haddii aad rumayso Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, waxaan kuu baryi Ilaahay si uu indhahaaga kugu soo celiyo. Wasiirkii Ilaahay ayuu rumeeyey, Ilaahayna indhihiisii ayuu u soo celiyey. Waxaa wasiirkii arkay boqorkii daalimka ahaa, wuxuu ku yidhi, yaa kuu soo celiyey indhahaaga? Wuxuu yidhi, wasiirkii Ilaahay ayaa ii soo celiyey subxaanahu wa tacaalaa. Wuxuu yidhi boqorkii daalimka ahaa, ma waxaad leedahay rabbi aan aniga ahayn? Oo ninkan boqorka magaalada haysta wuxuu ka dhaadhiciyay dadka magaalada degani in dhammaan ay u yihiin addoommo, isagana uu yahay ilaah ay caabudaan. Wuxuu ugu jawaabay wasiirkii, rabbigayga iyo rabbigaagaba waa Allah. Wuxuu bilaabay boqorkii daalimka ahaa inuu wasiirkii cadaabo ilaa uu sheegay meeshii uu joogay wiilkii yaraa. Waxaa la soo qabtay wiilkii yaraa oo waxaa lagu yidhi, sixirkii aynu waagii ku barnay miyaad dadka ku caafisaa? Wuxuu yidhi wiilkii, waxaan dadka ku caafiyaa idinka Ilaahay, oo sixir iyo waxa aad sheegaysid waa hore ayaan iska daayay. Boqorkii ayaa ka carooday waxa uu ku hadlay wiilkan yari, wuxuuna bilaabay inuu wiilkii yaraa si xun u garaaco ilaa ugu dambayn uu sheego meeshii uu ka keenay diintan cusub. Wuxuuna wiilkii yaraa sheegay raahibkii. Waxaa la soo qabtay wadaadkii raahibka ahaa. Waxaa lagu yidhi, ka noqo diintaada. Wuxuu yidhi, ka noqon maayo diintayda. Wuxuu boqorkii daalimka ahaa amray inay minshaar aad u weyn madaxa ka saaraan, kadibna madaxiisii laba u kala gooyaan, kadibna wuxuu u kala dhacay laba dhinac. Sidaa ayuuna ku dhintay raahibkii. Waxaa haddana la soo qabtay wasiirkii rumeeyey Ilaahay, oo waxaa lagu yidhi, ka laaba diintaada. Wuxuu yidhi, ka laaban maayo. Sidii oo kale ayaa lagu sameeyey, oo madaxii ayaa laga kala gooyey. Waxaa haddana la soo qabtay wiilkii yaraa, ka laaba ayaa lagu yidhi diintaada, balse diintiisii ayuu ku adkaystay. Wuxuu boqorkii amray dhowr nin oo ka mid a ciidankiisii inay geeyaan wiilkan yari buur aad u dheer. Kadibna markay ay buurta saaraan, ay weydiiyaan inuu ka laabto diintiisa. Hadduu ka laabto diinta, iska soo celiya ayuu ku yidhi, haddii kalena ka tuura buurta. Buurtii dheereed ayay saareen ciidankii. Ilaahay ayuu baryay wiilkii yaraa, oo wuxuu yidhi, Ilaahayow, iga kaafi kuwaan sidaa doontid. Buurtii ayaa gariirtay, oo nimankii ciidanka ahaa way ka wada dhaceen. Wiilkii isagoo socda ayaa wuxuu u yimid boqorkii. Wuxuu ku yidhi, maxaad ku samaysay nimankii ciidanka ahaa aan ku raaciyey? Wuxuu yidhi wiilkii, Ilaahay ayaa iga kaafiyey. Haddana wuxuu amray boqorkii daalimka ahaa inuu wiilkii yaraa ku daro dhowr nin oo ka mid a ciidankiisa. Wuxuu ku yidhi, waxaad geysaan wiilkan yari badda, waxaadna ku tidhaahdaan ka laaba diintaada. Hadduu ka laabto, iska soo celiya, haddii kalena ku tuura badda. Sidii ayay sameeyeen. Markii ay badda keeneen ayay waxay ku yidhaahdeen, ka laaba diintaada. Wuxuuna wiilkii yaraa ku ducaystay ducadani. Wuxuu yidhi, Ilaahay iga kaafi kuwani sidaa doontid. Waxaana ku qallibmatay nimankii doontii ay wateen, waxaana ka soo badbaaday keliya wiilkii yaraa. Sidii uu u soo socday wuxuu u yimid boqorkii. Wuxuu yidhi, maxaad ku samaysay nimankii? Wuxuu yidhi, Ilaahay ayaa iga kaafiyey. Wuxuu yidhi wiilkii, ima dili kartid boqorkaaga daalimka ah. Ilaahay ayaa iga kaa manciyey, oo waxaad i dili kartaa keliya
markaad raacdo waxa aan kuu sheegayo. Wuxuu yidhi, waa maxay waxaad ii sheegayso? Wuxuu yidhi wiilkii, dadka degan magaalada Najraan oo dhan hal meel isugu keen, kadibna waran igu tuur adigoo xusaya marna magacaada marna magacyo kale oo asnaamtaad caabudaan ka mida. Ugu dambeyn waxaad xustaa magaca Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa. Sidii ayuu sameeyey boqorkii daalinka ahaa, oo wiilka yari wuxuu ka lahaa qorshe ka sarreeya adduun, oo wuxuu rabay inuu islaamiyo qoomkiisa oo dhan. Boqorkii sidii ayuu sameeyey, oo wuxuu waran ku tuuray wiilkii isagoo sanam magicii xusaya, balse gees ayuu ka maray warankii. Warmo aad u badan ayuu ku tuuray isagoo marba sanam magiciisa xusaya marna magiciisa xusaya, balse mar kasta uu boqorka ku tuuro waran xagga iyo wiilka, gees ayuu ka mariyey oo Ilaahay ayaa ka manciniyey. Ugu dambeyn sidii uu heshiiska ahaa, wuxuu boqorkii soo qabsaday waran, wuxuuna ku tuuray wiilkii isagoo xusaya magaca Ilaahay. Markuu warankii tuurayna wuxuu ku dhacay wiilkii yaraa, sidaa ayuuna wiilkii ku dhintay. Dadkii oo dhan waxay arkeen mucjiso aad u weyn, oo maanta oo dhan boqorkan daalimka ah magaciisa iyo magacyada asnaamta uu caabudo ayuu sheegayey, balse wax warana wiilkan yari kuma dhacaynin. Markii uu xusay magaca Ilaahay ayuu waranka ku dhacay. Halkaasi waxaa ugu muuqatay reer Najraan in wiilkan yari Ilaaha uu caabudi jiray uu yahay Ilaah xaq ah. Waxayna go'aansadeen dhammaantooda inay islaamaan, waxayna yidhaahdeen aamanaa birabbil ghulaam, oo micnaheedu ay tahay waxaynu rumeynay rabbiga wiilka yari. Wuxuuna wiilkii yaraa ku guulaystay inuu qoomkiisa oo dhan u hanuuniyo, uuna ku hanuuniyo diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, wuxuuna ka soo saaray dulligii ay ku jireen. Boqorkii wasiiradiisii ayaa waxay ku yidhaahdeen, wiilkani wuu kaa aqli badiyey, oo dadkii magaalada Najraan ku wada noolaa waxay rumeeyeen Ilaahay, oo hadda kadib adiga wax ku caabudaya ma jiraan. Boqorkii aad iyo aad ayuu uga carooday, wuxuuna amray ciidankiisii inay qodaan godad aad iyo aad u waaweyn, waxaana godadkii laga daaray dab iyo olol aad u badan. Dadkiina saf ayaa la wada geliyey ku noolaa magaalada Najraan, waxaana lagu yidhi, kii ka laabtaa diintiisa waynu iska sii dayn doonaa, balse kii ku madax adkaada diintiisa dabka iyo ololka ayaynu ku tuuri doonaa, cadaab iyo olol ayuuna arki doonaa. Dhammaan dadkii degnaa magaalada Najraan waxay ku adkaysteen diinta Ilaahay, waxayna bilaabeen dadkii Ilaahay rumeeyey inay ku wada guraan dab iyo olol. Waxay soo qabteen haweeney xambaarsan ilmo yar, waxay ku yidhaahdeen ka laaba diintaada. Waxay ku tiri ka laaban maayo. Iyadoo ololkii iyo dabkii ku tuuri rabaan, waxay u baqday ilmaheedii yaraa, oo waxay damacday inay diinta Ilaahay ka laabato, balse Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ka hadalsiiyey ilmihii yaraa ay xambaarsaneed, wuxuuna yidhi ilmihii yaraa, hooyo xaq ayaad ku taagan tahay, ee ha ka laaban diintaada, dabkana isku tuur. Sidii ayayna samaysay, dabkii ayayna isku tuurtay. Halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadeenna maanta. Waa qiso mudan in lagu cibro qaato, oo qof kasta uu diintiisa ku adkaysto, uusanna ka bixin. Fadlan daawade ku soo biir janalkeena si aad ugu faa'iido muuqaalo noocan oo kale ah. Fadlan daawade muuqaalka like saar, asxaabtaadana u sheer garay si ay ugu faa'iidaystaan. Daawade, qisadani waxaa iyadoo kooban lagu sheegay Qur'aanka Kariimka, aayadaha ugu horeeya ee suuratul Buruuj. Allahu aclam. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.